shirka wadatashiga dib u eegista iyo qorsheynta mashaariicda damal caafimaad iyo Covid-19 oo socon doona muddo 4 maalin ah ayaa waxaa maanta Muqdisho ka furay Kusimaha Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada Soomaaliya ahna Agaasimaha Qalabka iyo Daawada ee Wasaaradda Dr. Maxamed Maxamuud Cadow. Shirka oo ay ka qayb galayaan mas'uuliyiin ka kala socotay wasaaradaha caafimaadka ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed, maamulka gobolka Banaadir iyo qaar ka mid ah deeq-bixiyaasha taageera wasaaradda caafimaadka ayaa labada maalin ee ugu horeysa waxaa diiradda lagu saari doonaa sidii dulmar iyo dib habeen loogu sameyn lahaa mashruuca damal caafimaad, sidoo kalena looga tashan lahaa qorshooyinka shaqo ee sanadka soo aadan ee 2024 iyadoo labada maalin ee xigtana xoogga la saari doono qorshe howleedka mashruuca tallaalka Covid-19. Kusimaha Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada Soomaaliya ahna Agaasimaha Qalabka iyo Daawada ee Wasaaradda Dr. Maxamed Maxamuud Cadow oo furay kulanka ayaa sharaxay muhiimadda labada mashruuc ee kala ah damal caafimaad iyo Covid-19 ay u leeyihiin bulshada Soomaaliyeed. Covid-19 iyo damal caafimaad labadaba waa laba mashruuc oo xukuumadda federaalka Soomaaliya ay bixisay qandaraasyadooda oo cadeynayso awoodda ay dawladda u leedahay inay qandaraasyo ay siin karto implementing partners. Marka waxaan rabnaa iyadoo laga faa'iideysanayo capacity-gaas ay dawladda leedahay in hay'adihii ku guuleystay inay mashruucaas fuliyaan inay uga soo baxaan sidii loogu talagalay mashruucaas in loo fuliyo waqtigii loogu talagalayna inuu ku fulo hadduu Ilaahay yiraahdo. Wasaaradda caafimaadka labadeeda heer federaal iyo heer state-na waa wada joogaan, qayb ayay ka yihiin kulankan loogu talagalay in consultation lagu sameeyo work plan-kaas waxayna marqaati ka wada noqonayaan hadduu Ilaahay yiraahdo mashruucan meesha ku dhamaan doono. Waa mas'uuliyad wadareed, waa mas'uuliyad naga wada saaran in caruurta iyo hooyooyinka Soomaaliyeed ee joogo meelaha mashruucan loogu talagalay oo ognahay duruufahooda iyo muddada ay sugayeen mashruucan inuu soo gaaro iyo waqtiga dheer ee looga sheekeynayay in mashruuc damal caafimaad la yiraahdo soo socdo inay haddana mataqaanaa si qaldan wax u dhacaan xogaa waa xanuun badan tahay, annagana diyaar uma nihin wax noocaas inaan maqalno. Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Caafimaadka Galmudug Dr. Cabdiweli Maxamed Axmed oo ku hadlay magaca maamul goboleedyada ayaa tilmaamay inay si wadajir ah u dejin doonaan qorshe howleedka mashaariicda waaweyn ee damal caafimaad iyo Covid-19 oo loogu talagalay in dadka looga faa'iideeyo. Waxaan halkaan u joognaa qiimeynta qorshihii sanadka 2023 ee mashaariicda kala ah damal caafimaad iyo Covid-19 oo ah mashaariic wasaaradda caafimaadka heer federaal iyo heer dowlad goboleed ay fuliso oo maalgeliyay bangiga adduunka. Mashaariicdaas oo dhawaantii dad badan oo Soomaaliyeed ka faa'iideysan doonaan dhinaca adeeg bixinta iyo dhinaca xoojinta isbitaalada iyo qalabaynta isbitaalada iyo sidoo kale dhisidda capacity-ga ama awoodda maamuleed ee wasaaradaha kala duwan ee caafimaadka heer kasta ay leeyihiin. Waxaa loogu diyaar garoobayay sidoo kale dejinta qorshaha 2024 sanadka soo socda, taasoo halkaan lagu diraasiyay maanta waxyaalihii laga bartay sanadkan shaqadii la soo qabtay iyo waxyaalihii u baahnaa in la hagaajiyo. Xabiib Axmed Cali, warbaahinta qaranka, Muqdisho.